Abi Axmed wuxuu sheegayaa ciidamo caddaan iyo madow ah oo dagaalka ku wehelinaya dagaalamayaasha jabhadda TPLF ee dagaalka kula jira ciidamadiisa. waa xilli ay Tigreegu ku soo dhawaanayaan magaalada caasimadda ah ee Addis Ababa oo dhanka Amxaarada ay kaga soo dhawaanayaan iyagoo qabsaday deegaano badan oo ka tirsan dhulka Amxaarada. hadalka ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayaa yimi kadib dagaal lagu jabiyay ciidamadiisa oo ka dhacay Desi iyo Kombolcha oo ah magaalooyin ay Amxaaradu leedahay, halkaas oo TPLF ay la wareegtay. kulan degdeg ah ayuu la yeeshay Abi Axmed saraakiisha dowladdiisa, halkaas oo uu ka jeediyay khudbadiisii ugu horeysay tan iyo isfidinta Tigray oo caasimadda Kaabiga u saaran. ra'iisul wasaaraha Itoobiya wuxuu xusay in ciidamo shisheeye ay qayb ka ahaayeen dagaaladii ugu dambeeyay ee Desi iyo Kombolcha, balse Abi muu sheegin cidda ay yihiin ciidamada uu sheegay inay la socdeen isbahaysiga Tigrayga. xogo hoose oo laga helay Addis Ababa waxay sheegayaan in Abi Axmed uu diblomaasiyiinta shisheeye u sheegay in ciidamo ka socday dalka Masar ay qayb ka ahaayeen dagaalkaas. Abi Axmed wuxuu shacabka Itoobiya ku dhaliilay inaanay aqbalin baaqiisii ahaa inay hubka qaataan bilo ka hor, sida uu ka sheegay khudbadiisa oo laga daawanayay telefishinka dowladda Itoobiya. afhayeen u hadlay TPLF wuxuu beeniyay eedeymaha dowladda, iyagoo meesha ka saaray inay cid kale oo aan Itoobiyaan ahayn ka gacan siisay dagaalada maalmihii la soo dhaafay. ra'iisul wasaaraha Itoobiya wuxuu ku eedeeyay Tigrayga inay rabaan in si xoog ah ay talada ugu soo laabtaan mar kale, dalkana ay ka dhaqangeliyaan in hal koox oo dadka ka sarreysa ay noolaadaan, waa sida uu hadalka u dhigay. wararkii ugu dambeeyay ee saacadihii tegay ka imanaya furimaha hore ee dagaalku waxay sheegayaan in Tigraygu ay ku soo dhawaanayaan dhanka caasimadda, iyadoo lagu muransan yahay inta ay u jiraan magaalada caasimadda ah ee Addis Ababa, maadaama aan lagu wada xidhiidhi karin khadka telefoonka oo la gooyay. xalay maamulka magaalada Addis Ababa waxay shacabka ku wargeliyeen inay isdifaacaan, isla markaana hubka ay haystaan ay dabadda ula soo baxaan. waa war dhiila leh oo walwalgeliyay shacabka Addis Ababa, iyadoo laga cabsi qabo in jabhadaha Oromadu ay qayb ka noqdaan duulaanka Tigray, taasoo haddii ay dhacdo abuuraysa cabsi ah inay la wareegaan magaalada caasimadda ah, siina xumayso qaska iyo deganaansho la'aanta qaybo Itoobiya ka mida ka taagan. jabhadaha Oromada oo qaarkood aanay ka fogeyn Addis waxay iyaguna hore ugu kacsanaayeen una diidan yihiin xukuumadda Abi Axmed, xilli hogaamiyeyaasha loogu jecel yahay Oromada dhexdeeda ay imika xabsiga ugu jiraan Abi Axmed, ra'iisul wasaaraha mar qaatay biladda nabadda, balse imika ay fadeexadaha xasuuqu dul hoganayaan. diblomaasiyiinta shisheeye ayaa lagu soo warramayaa in xaalad degdeg ah loo sheegay, iyadoo ay jirto suurtagalnimada in Addis ay ka dhoofaan saacadaha soo socda. Maraykanka, Ingiriiska iyo wadamo kale ayaa dagaalkan cusub walaa xoogan ka muujiyay. dagaalka uu Abi Axmed bilaabay wuxuu Kaabiga u saaran yahay caasimadda, mana jirto cid garan karta waxa xigi kara. Khadar Haybe, Saab TV.